الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي المغاوير، أن هناك في حي الصنعاني مصنع الأواني لأناس من كفرة السن أكثر عماله النساء. أحدثكم من قصته غرائب وعجائب. أولا، من ناحية الدين والأخلاق، اختلاط النساء ليل نهار بالرجال الكفرة والمسلمين غير ملتزمين. ثانيا، من حيث المعاملة وحقوق العمال، تعمل المرأة والرجل معا 12 ساعة كاملة ليل ونهار. ثالثا، هؤلاء الكفرة الصينيون أخبث الكفرة في العالم، أخبث كفرة في العالم. إذا اشتروا شاة للأكل قتلوها أولا شر قتلة. رابعا، كيمياء هذا المصنع قد سبب إجهاد الجنين في حق النساء وأنوث الحيوانات وتلوث البيئة. أنا في صومالي دي كرهو حافظ أفريتو منكي مقالة مركي في الدين البلادين مقالة النعيدة للررية لو في دي دعا كونفورت قلبيت كحيتا حافظ بالدجي سمعان الله يلاحظه ممكن قالت إن بريجي قريين بيك السبيين ويك غيب قاتين فربضن هاي دي سيسي وحن حسوستا هاي لوبين إنجنير كينيا بوها هوتيلا دواوين هرقيسا ميد كميدو هينجري إسوا هكا إنجنير كا أيا وحو فافيني بيبالكي أو أفصومال لوغو قرى كالر لون قرح بدن لو سميه سكورتيجي هوتيل كاسا مركي ورو قادي أو دبقالي وحن يا فافينيا مركي لبادنا waxaa loo sheegay sirdoonka iyo qoladan saxaafadda annagana way noo timi annagana waan ka hadalnay saxaafaddu way ka hadashay gaanjada iskaga jareen qoladii taliyaashii booliiska oo annaga mustaafirinay bay dhahdeen waa mustaafirisay qaar kalena waa mustaafirisay waliba laakiin arrintu ma ku dhamaanaysaa magaaladii way degtay 14 marka laga soo bilaabo ilaa yoomina hada magaalo dhisan bay ahayd warshad baa laga dhisay warshadda waxaa la beeray gaaradan Chinaha وغريب مركز جاينا هلكن ورشة كسمة سنة يا دل كاجي هور مرين سبات صورة نساء جاينا هدو كهور مرين يا الله مسلمة وحور مرين لها إيجار كا وجميستة والله أيه هور مرين لها سيدو أقلي أي عبرك وقفلان لكن صوماليدو يدبن هالبتشير السنة حيسوق تشرينه ما إسلام قارد كلا دقن بونا حيسان وحبك كم جلني يدا جاينا وحكوا سمية مسلمين دلعينا عين كوبدني يروي لهم حريستين ويانا warshad baa laga sameeyay weelka geeska ayay sameeysan si fiican baan ugu kuur galay muddo dheerna waa la socday muddo sanad deganeed baa la yiri ayaamihan jeelka ka soo baxay ka bacdi waan tagay warbixintan aan iminka idin sheegayay ay markaa aan idin fasiri doono ayaan la iga sheegay waan ka hawlgalay wixii aan ka hawlgali karayay dacwadahan iyo sida kaleba deedna meeshaas xaafadda hadaan idinka siiyo dad ka fiican mucdan hargeysa dadka degan ayaa degan dacwadahan iyo tarbadahan iyo si xaq ugu dhaganulin culimada marti way marti qaadaan waxay leeyihiin maxallad weyn oo dad muxsiniin u dhiseen malaamadiyo masaajidada iyo maraakiis kale ay ku yaaliin oo dad ilaahay dartii markaa u rajeynayay u doonayaan ay u sameeyeen anigu aan garan laakiin laga warramay dhulkaas dacwada markaa lagu qabtaa muxaadaraad waaweyn xaafadaha mucdan magaalada ku yaala muxaadaraadkan u galo waxa soo xaadiray dad ka tayo badan oo ka tiro badan oo garcas leh oo rag leh dhalinyaro leh dumarkayga warkooda leh deedna dadkii way ashkatoodeen cabashada way noo sheegeen cabashadii ay noo sheegeenna hadda dantu waxay kaliftay inaan bartan ka sheegno way kaliftay way qasabtay waxa marka hore ay tahay warshadan nimankii gaalada ahaa Chinese-ka sidooda u haystaan warubama anigu ma garanayo inay saami ku leeyihiin Soomaali waa ka wakiil horta kamale waxa meesha ka dhacaya shaqaale ayay u baahantay shaqaale habeenkii iyo maalintii waxay ka rabtaa inuu shaqeeyo 12 saacadood dumar baa markaa iyaguna meeshii marti waa shaqadii habeenkii bay galayaan galabtii markaa 7 ama 6 waqtigiisa 7 ilaa 6 ka baxayaan hadana rag gaalaana way ku dhex jiraan oo ku shaqeynaya iyaga sida dameeraha ugu shaqeynaya waa laga yara qayliyaa ninka rag kale ku qaldeen oo waxay yiraahdeen bal ragana waa inaan shaqaalayna keena mala waxa ka cabanaysa ragiba shaqo waayay si loogu aamusiyo xogaa ragana waa la qoray raggan dambe muslimiinta iyo ragii gaalada iyo habli baa la iskaga dahliyay cadradaha ay ragayso u dhashay xaafadda inteeda badani markii ay waxaan aragtay rag iyo dumar fara badan oo ka shaqeeyay iskaga tagay waliba markaa indhaha kaga sayday markaas ilaa waxaan ku dhuka sameeyay nagala taga
والله قبضتهم مقالة كلا كقرمتو شقمودي habeenkii waxa meesha lagu falaya adaaya qan gabadh xijaab iyo waxay wadato waa laga qaadaya sheelad yar ba halkan lagu xidhaya mishiinka ku shaqeyn kari meesid baa la leeyay waayo mid buu mishiinku dabay oo mishiinka wareegaya intuu maradii jiitay buu ku baqtiyay sakaraad baa ku kacday markiiba iyadoo sakaraad isna way dafirayada isu dhimatay baa anagu shaqo kuma lihin caariya ceerta halka ay naga haysato qadabka horta qof ee diin iyo dhaqan ku dhintay dadkaasi way ka dhiidhiyeen waxa kale soo raaca gumaysi baa lagu hayaa jeeynaha ka yimi Indonesia hargeysa ku gumaysan ma islahayd uu gumaysanaya fadhi uma ogola raaxana uma ogola salaadna uma ogola oo salaada tukana min oran kara haayo markay intii badnay taariikh salaad noqotay waxay yiraahdeen midbirkiina wuxuu kuwa la mid oo shaqaysta adiga laga tagay saasuu ku yiri 12 saacadood bay gabadhayeen inuu kuba shaqeynayaan oo ay guntiga iska furayeen kabarad baa ku rakiban bay yiraahdeen xataa suuliga markaan gallo waa ka shifaysaa bay yiraahdeen markay sidaas dhacday 12 saacadood oo xiriir ah oo aan salaha nasasho lahayn oo waliba habeena oo hablayayna ma diinta gaaladu xitaa ma ogola iska daamid islaam qaanuunka dawladda u yaalana ma ogola ee xuquuqda shaqaalaha aan sixinay nagu leh ta ma ogola waanay ka warhayaan oo ma ka dhagala waxna kama qabanin to maartid yaa u doodaya marka xuquuqdooda lagu gumaysanayo maxay ku shaqeeyeen waxa ay soo fariisanayaan sees meesha xaafadii baa dhex gasho magaaladii seeska ku xiga oo dheer seeska calaacalka la yiraahdo hablaha reer geysa isku simaya inamada markay la soo ogolaaday markay dhex fariisanayaan inanimada inantay ka curdinsan tahay ayuu leeyahay soo kac telefoon buu siinay telefoonkaasaan kala soo hadlaya keen telefoonkaaga heblaaya soo adiga taasay soo kac taa dhalaalaysay soo kac taa dhumucda yaray soo kac oo leeyahay telefoonkaaga la soo hadlana kula soo hadlay inta kale sida uu eegi maayo seeskii calaalkay si fadhiyaan rajisuge waa laga tagay intiba hadhow mobil buu sitaa af Soomaali iyo Chinaha isku turjumaya China qoraya mobilkii dabadna kii kale wuxuu turjumaya Soomaali waa lagu rabaa kaalay saacada soo shaqada uu galaya marka ubaysiga inta lag baa ka jira qodobka kale ka jira waa maxay waa dugaag qalbigu ingigay neef ariga iibsanayaan oo nool hilibka ma iibsanayaan neefkii intay daldalaan ayay dabeedna markay gororiyaan dhiigu hoos u gororo bay halkan luqunta iyo meelahan madaxa xagga hoose ay kulba ka mudayaan dhiigu markuu ka soo dariina haddana meel kale kaasi haddana markuu ingiga haddana meel kale neefkii با إذا قدرتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وحنا نقرب مركا واحد ديله إنسان حتى وحي واجب زي اللي ديله سفي عنه ديله مركا الناس جورع إنسان حقف من ديله في قصية والله تعال قص العنينة ما أنت ساعات أي الناس قال كبعد كهيا ليك كل بالله الشبيع صومالي دي بلا نحريس سبيقات سيرو ويدعون إنسان دي ميسو صومالي دي ما دي صومالي دي ما حقوق الإنسان كي قالوا حتى حيوانك احترام تعبت الحضاني وأكو أمانتاني حقوق الإنسان كي ما حقوق الشغالة هذا شيء ما هذا ما يسال مياه أو أن ندير عدو شيء ناس وما ينعمها كهذا الناس كدايتي إذا كحقوق الله اللي مديرين ده هذيك ركضة وين وحكروا أنت أوليرو كدرن كيميكال ويه كيميكال هبين كي مركو هيري واحد موديسا أوكتي هاو كلو شدو كلي ويسقى مرقات فريم ده أوكتاسي وكيميكال ويه بحيا markay habeenkii reeruhu seexdaan sufuuda iyo dhaska nagu dhigay waxaan is oranaynaa waxaan oo siigay sufur iyo qiiqa gurigiina xaq uu ka soo galay waanu anagu qacabursan oo il daran baan toosaynaa baashana ku soo karinaysa waxan oo sakhdi xashiishka dhaqanka qudunka saan loogama xaado banaanku uu soo dareeraya riihii iyo xoolihii baa ku agaanaanufay dhibaatadana ka dhalatay kow dumarkii way dhiciyeen heblaaya dhicisay heblaayada hebel baa dhicisay walaasheeda dhicisay kana dhicisay way ka wada warrameen tira bay gaarsiiyeen aan waxba sheegeen anagu ma naan tira koobanay waxa weeyaan riyihii bay yiraahdeen jaarka la aha lixda ood riyahaas ismay raacin oo daa ka daba dhalatay ma jiro haday markaasi dhashaana ama ridu way tuuraysaa ama neefkoos tirin silqaysan baa soo dhacayo intaas leeyahay xabka ka go ayuu baldaq intuu nafta ka baxaysa markaba shanta ood riyahaas ismay raacin meelaha ku agoreegayaan riyihii naga naf badanay iyagiiba xataa uu saameeyay hablihii cadradaha ahaa baa dhaqaatiirta ku waashay ka cabanaya macdanta dumarkii dhalayna dhashi buu ka daadiyay isagu ma buu qarin ninkii uu shaqeynay wuxuu hadda danka leeday gabadhaadan adigu waad ii shaqeysaa meesha ka kaxayso markii waxaas fashilmeena wuxuu oo dad ninku warshad baatiino dumaray warshad kama shaqeeyaan deena dhicinaysan ogaada buu uu sheegay marka in lagu dhicinayo ilmihii laga soo daadiyay hadaba intaan oo dhan baa dhacday intani waxa ay tahay kolkaan ما كدلنا ينتاسودن ومن قتل النفس التي حرم الله
قتلها ودل نف إلهي حرمين للدلو الماء السوري دي صوبت كيميكال كانوا كسر عين بيأذن اللي جوا سخيه حيوان كان اللي جوا فسادي إلهي نوحي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نفتها إلا دلوا ممنوع ربي حرمي تنوى الدل بكرجتين ومن إهلاك الحرث والنسل وحيتها هلاك نفي السرع بالله بابين اليوم أو مدى الله بابين اليوم وأن ما تقيل دانك ونحي إلهي بوحوا ليه وإذا تولى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد كان المفسد كابو إلهي كورمي marka uu dhulka arlada taladeeda qabta ama uu ka baxay maxamed ka jeesto wuxuu u dhaqaaqayaa dhulka isagoo dhulkii fasahaadinaya isagoo halaagayo baabinaya noolihii iyo tarankii isagoo baabinaya sarci iyo beerihii ilaahayna fasaadka ma jecla fasahaad ma jecla ka fasahaadinaya waxa ka waran waa kaga sii cadabadaya kaana arinta waa fasahaad maxaanu markaa rabnaa dadkani way ashkatoodeen waxay dhaadeen laanta la ilaa immigration-ka macnaha laanta socdaalka sirdoonka u jeedaan CID واحد أسرّية حافظ اللي كويستك مي بالله يدخل أمني جو قابل سن أسرّية لبا عيدن كأمني جي يستشمل إنك أسرّينا أفر تاجي هانو جارسيني يعني والله واحد نوقبنا يعني مشيتو والله كأنه بيد هذا ما كانوا كأنه قلنا كاسين لقرا واي بحال ورنا نقوم يسوي وحنا ما يقبل وركنا ودوجو بي أنا جو وقت أن شركة الصباح هاي محاضرات أنجلي عبشنا الله يشجع قارك كم إذا ما ودوجين وحنوش شيء وسير ده واحد عطاك من دولة إما كجرتك محمد تاني كجرته معها كل مية كها مركا وسير ده واحد عطاك وحنقول هذا دوبا لورن دونا قول لي بقى مركا سير وقتي أما عشان بيربح القطع لورن دونا ده وش شيء دولة ده وقتي وحنقول ولا بقى ورشة عدة هاستك توسعر ده وش شيء وأنا وش شيء بقول وانا بعد نعرف هذا هي كده والمغلي وحبان كقبلنا سنة كل دوات ده كسر وريجي وحلا قبتين بتشي تواتر قيلة ما أنت تاجر دنتوي قصبت ما أنت أنا كهذا وحلينا هرت بركورين دولة السرع الحكومة إياها أيام الله بيناي وشعب كان مسلم كاي غير الجيزها بتبادسو حافظها نرشي سهبت بادسو دينتي سيادقن كيس سهبت بادسو ديجان كيس حيوان كيس سهبت بادسو وحين دب يدف أي دب جيزتي يدمش ورشدة سنة لملك الشينة على روح حكومة ومد المها صار عين إمام مالك وحوليه هاي وفق الصوابي جهاتك المها الله صوري دي وحنا قلنا يقرر معنا وأظن كنا الشافعية واحد يقول قيمة يعني شن هالات هلا قيمة ترى شن هالات الله يدعو مية شن هالات بحلو حكومة هلا كم مريض بحيوانك بيادة فسهادية هلا كم مريض حقوق الإنسان كهي ما دعاء الشيطان يدك حقيقة الرئيس جاي قل هذه الناس حافظة يدقيسن إنسان ما سياستهم باخد وقتين دتكين يدقان كنا ميدان إلى دينتي نميدان إلى أليس حفي مي سردون مي ما تكتان ويدك صواك إنتان أو وركضتك أو الشيطان أو غير ناس ماشي إلى الجيزان والله إذا كمرت هذا ينتهي وحبا قبوايان وضياشا دخل كبيرها وطليا أقوياها كي وعقرتك يدتك دباتك كل عيسو أو سرت شوغن أو سوغن وانو أرقني قدياشو دي مامولكا كو دي أمنيكا رق يضمر يمرخاتياشو دي يسلو قيريا إنت بوان الله فريسرني أو الله هذا الله وحي كعبني أنا وعندك يسلني قصباني تاقين وحلو قبطو هل كانت أمانة ضيعنت سو ما ركتد dadku iyaga markaa isku xisaabtami doona oo noloshooda diintooda inay difaacdaan iyaga dantu ku haysa hadii cid wax ka qaban weydo marka afeef hore iyo adkaysi dambe midun baa la qaataa Soomaha hadda weydinka amaanada la dayacay baa waxaan odhana keentay nabigu alayhi salaatu wasalaam ma min abdi yastar'ihi Allah ar-ra'iyata yamut yawma yamut wa huwa ghashil ar-ra'iyati ila harrama Allah alayhi al-janna kabarra muslim sahih ninka ilaahay dad mas'uul uga dhigay ee dadkaasi dayacay ee khiyaameeyay ee u khayrin yiri waay ee inta maalinta ajasho u timid ee dabadna sida ilaahay kula kulmay wuxuu markaa la kulmay ilaahay isagoo ilaahay jannada ka xarimay oo naar u waajibtay waa qofkii amaanada ummadiisa iyo diintiisa dayacay iyo cidiha Allah xilka ugu dhiibay intayna halka ku soo dhicin fadhigaan ka kacdo dadkuna feejignaada dumarka halkaasi waa dumar fiican fariintan u diray waxay tahay sabab qiil oo sharci oo meesha kaga shaqeeyaan ma jirto waa muharram muxaadarada marka uu galeeyo khudbada uu galeeyo meesha uu galeeyna waa u sheegay imma kale waa u sheegaya culimada islaamku saas isku raaceen inay gabadha halka ka shaqeysaa waa muharram ragaaba ka dararo inuu ka shaqeeyaan ugu baaqano dhibaatada ka dhalanaysa mar waa waxay tiri inankayga maalin ku yiri meeshan nimadu shaqo tigeen u shaqo tag
wuxuu hooyo intaadii qalato dhariga igu rido karso saasaa ku dhaantay buu meesha waa lagu karsadaa buu rag iyo dumarba waxay tidhi makaankaygu u garaabay dadka ashkatooniyana way ka mid ahayd imaka soo ma aragtid isagoo dhaanas cayaarayo hablihii dhaanas la cayaaraya ninka meesha haysta telefishin kaga duubaya inaan khayruudo meesha risq ku soo doonato ku soo dhaqaaqay isagoo ka duubayo faraan la soo galaya biladadii ay sameynayeen bay intay qaaday afka kaga dhufatay maase shaqadina uga tagtay dariiqaas oo kala marka afka kaga dhufta maana uga tago meeshooda u faaru qareeya haddii kalena dadka xilka saaran hadhowto amaanadaasi oo la isku canaanan yaa ka mas'uul ah yaa dayacay bariya la isu dabagelin dabaqabatay leedahay deegaanka iyo ummadda iyo diinta baa la badbaadiyo Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa barik lana warzuqna ijtinaba Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shararana Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ربنا انصر لنا اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا وانصر الذين يريدون تحكيم الشرع في بلادك اللهم انصر الذين يريدون أن تكون كلمتك هي العليا انصرهم نصرا عزيزا مؤثرا شدد اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم شدد شملهم فرق جمع وخرب ديرا واجعل بأسهم بينهم واجعل كيدهم في نحورهم وأرح المؤمنين من كيدهم يا رب العالمين.